الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب. إن الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب. ولد الإسلام غريبا واليوم نراه غريب، وصفوا ديني إرهابا والمسلم صار مريب. ولد الإسلام غريب وصى بها ديني، في الحل والترحال، في السلم في الحرب، في الأمن في الأخطار. إسلامنا عظيم، 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 إسلامنا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انت اسكدب mahad ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa iskale mahadoo dhan. ilaahay subxaanahu wa tacaala naga dhigay dad muslimiin oo ducaad ah, nana waafajiyey manhajka salafka inaan dadka ugu yeerno. walaalayaal, waxaan ka bilaabaynaa meeshaan duruus aan ku magacawnay duruusun fi lmanhaj, oo aan ku sharxayno manhajka jamaacatu lixtisaam bilkitaabi wasunna. manhajka jamaacada iskale waa jamaacada macruufka oo la yaqaano, oo ah jamaacada salafiga ah oo Soomaaliyeed, ayna kula kulansan yihiin culummada mashhuursan dacwada salafiga ah ee Soomaaliyeed, in muddaana ku hawlaneed kana shaqaynaysa sidii ummadda Soomaaliyeed dacwada saxda ah iyo diinta ay ugu soo noqon lahayd si adduun iyo aakhiraba loo liibaano. sababta keentay waxa weeye walaalayaal, maadaama waqtigan mucaasirka la joogo waxyaalo fara badan isku qasan yihiin, in jamaacadu ay manhajkeeda iyo wadada ay ku soconayso ay cadayso aad baa loogu baahan yahay. waana shay looga dayanayo culimmadii hore salafka ahaa, in caqiidadooda ay cadeeyaan, in manhajkooda cadeeyaan, gaar ahaan marka wax isku darsoomaan waxyaalo fara badan isku ekaadaan, in dadka aad maaragtay waxa loogu cadeeyo waa loo baahan yahay. gaar ahaan waqtigan dee mucaasirka ah oo jamaacooyin fara badan iyo dacwaad fara badan ay jiraan oo meelo fara badan ay ka shaqaynayaan, in marka jamaacadan ay ahaato jamaaco la fahamsan yahay manhajkeeda iyo caqiidadeeda iyo waxay aaminsan tahay, aad baa loogu baahan yahay. manhaj hore ayaa jira oo mukhtasar ahaa oo jamaacada u qornaa, isla manhajkii taqriiban weeye, waxaana loo baahday in xooga la faahfaahiyo oo la tafsiiliyo masaa'il oo la cadeeyo si dadka qaarkood aysan khalad u fahmin. marka mujmalkiisii iyo mukhtasarkiisii ayaa la faahfaahinayaa, macaani fara badan iyo kelimooyin fara badan ayaa lagu darahayaa. manhajkan diyaarintiisa iyo faahfaahintiisa waxaa loo xilsaaray allajna daa'ima lilbuxuuth waliftaa, lajnadan ama guddiga jamaacada u qaabilsan cilmi baarista iyo fatwada u qaabilsan oo culimmada u waaweyn ah ayaa loo xilsaaray muddo
aan hore culimadiina aad bay runtii iskugu mashquuliyeen sidii loo diyaarin lahaa jalsooyin fara badana way qaateen si manhajkan loo akhriyo loo muraajaceeyo oo maaragtay loo saxo wixii ku jira oo aan cibaarooyinka iyo kelimooyinka aad loo kala doordoorto fadhiyaal fara badan oo ka dhacay meelo fara badan waddanka gudihiisa u badan ayaanu maaragtay aan qabanay fadhiyadaas taqriiban ilaa 10 fadhi meelahaas ayay gaarahayeen culimada u waaweyn oo jamaacaduna runtii way soo xaadirahayeen qaarka dibadda jirana waa loo gudbiyey oo maaragtay waa loo diray in manhajkan ay ka soo maxaan ku rahay diyaarintiisa iyo ka warbixintiisa iyo ay ka qayb qaataan dhammaantoodna bixamdillaahi tacaala waa noo soo jawaabeenoo manhajkan way ka warqabaan marka saas baa manhajkan diyaarintiisu ahayd manhajka marka la diyaarinayay masaadirta iyo maraajicda salafka oo caqiidada iyo maaraan ku saabsan iyo manhajka aad baa loogu noqday ama ha noqdaan qaar mutaqadimiin culimadii hore ama ha noqdaan culimada mucaasiriinta ah kulli waa u wada noqonay anagoo ka faa'iidaysanayna runtii yani qaar ka mida masaajidta mucaasirka aad baan uga faa'iidaysanay oo cibaarooyinkooda iyo sida ay u tacbiiriyeen sida ay u soo dhaweeyeen masaa'isha qaarkeed ayaa nacajabisay markaasaan ka qaadanay qaarna naskooda ayaan qaadanay qaarna taqriib macnahooda ayaan soo dhaweynay waxaa ka mid ah kitaabka la yiraahdo Siraaj al-Wahaaj li Abi Hasan al-Ma'ribi oo aan uga faa'iidaysanay waxaa la mid ah kitaabka la yiraahdo al-Kulliyat uu leeyahay Sheekh Cabdiraxmaan Cabdul Khaalid xafidahullah ta'ala sidoo kale baan ka faa'iidaysanay sidoo kale kitaabka la yiraahdo Wathiqat Tarshiid al-Amal al-Jihad aydan oo ka faa'iidaysanay iyo maraajic kale oo fara badan oo runtii qaarkeed lagu arki doono maaragtay maxaan ku oraa markii si fiican loo daabaco aan tilmaami doono biidni illaahi tacaala waxaan rajaynaynaa insha allah manhajkan inuu noqdo manhaj aad dadka muslimiinta ahi ay ka faa'iidaystaan guud ahaan gaar ahaana dadka ducaadda ah kasii gaar ahaana dadka ducaadda oo salafiyiinta ay ka faa'iidaystaan insha allah tacaala baan rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa inuu xataa uu noqdo manhaj ka faa'iidaystaan ducaadda salafiyiinta oo caalamka islaamka rag badan culimo aan insha Allah tacaala waa la xiriirnay inay bal maaragtay ay nala arkaan oo wixii naseexa ama wixii maaragtay ay ku biirin karaan inagu biiriyaan ayagana qaarkood waa noo soo jawaabeen waana ka faa'iidaysanay muraaxadooyinkooda insha Allah tacaala walina waan wadaynaa insha Allah tacaala xiriirka iyo ka faa'iidaysiga walaalayaal manhajka asaga ah waa manhajkaas yani ku salaysan kitaabka iyo sunnada jamaacada iskale magaceeda iyo manhajkeeda yani aad bay iskugu muuqdaan oo jamaacatul ihtisaam bil kitaabi was sunnah in kitaabka lagu dhago iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam lagu dhago ayagoo fahamkiisa la fasaha loo noqon hayo manhajkaas ay jamaacadan aaminsan tahay waana manhaj kelimooyinkaas waa ku filan laakiin maadaama uu iska badan tahay fitantu iska badan tahay buuquna badan yahay waxyaalo fara badan isku khaldahayo in la tafsiiliyo ayaa maaragtay ayaa loo baahday manhajka macnihiisu waxa weeye in maaragtay dabcan wadacad lagu socdo wadacad la qaado oo dhan kasta ah kelimada manhaj marka hadii luqo ahaan aan ugu noqono waxa laga soo qaatay an-nahj ama nahaja oo macnaheedu yahay waa cadaaday النهج الطريق الواضح markii loo noqdo kutubta macaajimta loo noqdo iyo qawaamiis luqada carabiga waxa arkaysa kelimada المنهج iyo kelimada المنهاج iyo kelimada النهج in isku macna yihiin oo macnaheedu yahay الطريق الواضح waxa kale la yiraahaa أنهج الطريق ay istabaan wadadii waa cadaatay istabaana وصار نهجا buu noqday واضحا بينا waxaa kaloo la yiraahaa nahajtu tariiqa wadadii baan maray idaa maaragtay idaa bayantahu wa awdaxtahu markii wadada aad maaragtay cadaysid oo aad ku socotid aydan waa loo isticmaalaa oo idaa salaktahu marka macnahaas ah wadada cad oo lagu socdo oo la cadeeyo kelimooyinkaas iyo macaanidaas ayuu ku wareeganayaa kelimada manhaj la yiraahaa markii aad fiirisid xagga quraanka kariimka waxa soo aroortay kelimada ah al-minhaj likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja marka culumada mufassiriinta ay ku magacaabeen shir'atan wa minhajan ay sabiilan wa sunnatan wado iyo dariiqo qaarna waxay yiraahdaan sunnatan wa sabiilan si loo kala hormariyaba sida ibn kathir uu sheegayo iyo ibn jarir at-tabari
marka shircatan wa minhaajan shircatan sabiilan bay leeyihiin minhaajanna sunnatan ama waa la isdaba mariyaa almuhim marka waxa weeye wada cad oo la qaadahayo oo lagu soconayo way kelimadaas macnaheeda waa dariiqo مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وصي لها وحاها نيسا خلافه على منهاج النبوة بمعنى طريقة هذه كسعته علماء المؤلفين تا وكتبت ألفنا مقع ما منهاج أما النهج واستعمالين سيدا كتاب كعان كاهو اللي يراه منهاج السنة وشيخ الإسلام وليه ونكاقها الله هيو وضدتك أهل السنة هي قاضة هيان ويكون الدين هيان أما يكاقى جواب هيان أما يكون صح هيان خرطاتك فرقة بعضية سنة استعمالان وحال لماذا مثلا كتاب الإله نهج الرشاد في نظم الاعتقاد ولي شيخ الإله يوسف بن محمد السرمري الحنبلي ومن علماء القرن الثامن الهجري علماء القرن سديدات كم يضها مركا كلمة منهاج هي النهج هذا الله استعمالي وحان الله استعمالي معناه هذا وطعط أو لقص عنها كلمة الشرعة هي منهاج مثلا الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى وكلا قاضي هي حليه الشرعة وحاوي معناه هذا الطريق إلى الماء ووضع بيه كجارسين إيسا أما بيه دحمرتا أما بيه لوجاره بينما حليه المنهج وحويان الطريق في الأرض اليابسة ووضع للبرئة أما ماركتي أنبي أمارت أنبي لهين أما أنبطهين أما وبي لهين وضع قاضي صوب الله روي marka wuxuu leeyahay shariicaduna waxa weeyaan wadooyinka xagga biyaha ku dhamaanaysa oo biyaha looga dhacayo tan waxa weeyaan wadooyinka meelaha marmaran ama biriga amaraysa weeyaan sida noqotaba ala kulli xaal kelimadaas macnaheedu luqo ahaan asalkeedu waxa weeyaan waa wado cad oo waadix ah oo la cadeynayo oo la qaadayo weeyaan runtii waan sida aan u dooranay in jamaacadan ay cadeyso wadada ku socoto wadada caqiidadeeda ah wadada dacwadeeda ah wadada camalkeeda ah markii manhaj la yiraaho saddex nooc ayaa loo kala qaadaa manhajka i'tiqaadka ku tacalluqa iyo manhajka fahamka diinta ku tacalluqa ama loo yaqaan manhaj al-istidlal ama manhaju al-fahmi wal-nadari wal-istinbaat baa la yiraahaa sida diinta loo fahmayo sida diinta loo istinbaatahayo ayadana maaragtay waa manhaj kale weeyaan waxa saddexaya manhaj ad-da'wa manhajka dacwada loo adeegsanayo ama manhaj at-taghyir manhajka marka wax la bedelayo oo dadka wanaag loogu yeerayo oo xumaata looga yeerayo oo muslimiinta maanta waxay u baahan yihiin inay bedelaan wax badan oo khaldan marka in maanta ummadda muslimka ah wax ka khaldan laga bedelo oo wanaag loo bedelo oo dulliga laga bedelo oo cizi loo bedelo tafarruqa laga bedelo jamaaco iyo midnimo maaragtay loo bedelo ضعفiga laga bedelo awood loo bedelo macsida laga bedelo taaca loo bedelo khuraafaadka laga bedelo aqeeda fiican loo bedelo waxa soo dhan manhaj bay u baahan yihiin marka manhajkaas ama ha noqdo aqeedada ama ha noqdo xagga fahamka diinta ama ha noqdo xagga dacwada iyo bedelitaanka ummadda waa inuu salafi ahaado ayaa laga maarmaan ah waana isku xiran yihiin saddexda manhaj oo qofku mar hadii aqeedadiisu salafi ay tahay waxa laga maarmaan ah in fahamka diintuna uu salafi noqdo sidoo kale dacwaduna ay salafi noqoto ayaa loo baahan yahay waana isku xiran yihiin maxaa yeelay diinteenu diin kaamil ah weeye oo hadii aqeeda ka hadashay waxay ka hadashay sida diinta loo fahmayo wadada loo qaadayo sida ummadda loo bedelayo ayadana waa ka hadashay marka diin shaamil weeyaan nabiga sallallahu alayhi wasallam waa nabiga lagu dayanhayo salafus saalix oo saxaabada iyo taabiciinta aan ayagana waa lagu dayanhayaa oo nabiga sallallahu alayhi wasallam dhaxalkiisii iyo diintii uu keenay iyo qowlkiisii iyo ficilkiisii iyo siiradiisii ayay noo soo guuriyeen wayna ay dabaqeen marka fahamkii ay fahmeen iyo sidii u dabaqeen waa looga dayanayaa marka diin kaamil weeye oo sidii ku timid nusuusteedii iyo fahamkeedii iyo cilmigeedii camalkeediiba in la soo guuriyo oo lagu camal falo oo la qaato ayaa loo baahan yahay marka sida aqeedada looga qaadanayo sida ahkaamta salaada looga qaadanayo sida ahkaamta soonka looga qaadanayo ayaa waxa loo baahan in maar ayadana looga qaato xagga diinta fahamkeeda sida loo fahmayo diinta sida loogu dhaqmayo sida loo dabaqayo sida dacwada loo fidinayo kulligood in maar la qaato
والنبي صلى الله عليه وسلم يسلف الصالحة laga soo miin guuriyo ayaa loo baahan yahay marka diin kala qaarqaaran oo qofku uu leeyahay aqeedadeedana xagan ka qaadanaya fahamkana xagan la aadahaya ama aqeedadeedu maxaan ku waa noocaas fahamkayguna waa noocaas dacwadeeduna waa nooc kale oo kala jaad wax soconaya maaha shay dhameystiran oo hal meel u noqonaya ayaa loo baahan yahay oo ah manhaj salaf salih fi al-aqeeda manhaj salaf salih fi al-fahm wal-nadar wal-istidlal wal-istinbat iyo fahm manhaj salaf salih fi ad-da'wati wat-taghyir maxay nabiga sallallahu alayhi wasallam ummad buu soo saaray diin buu fidiyay ummad buu mideeyay dacwo fidiyay wax badan buu qabtay sidoo kale saxaabadiisu sidii bay yeeleen الخلفاء الراشدين وضدي بقادين marka wadada umada lagu soo saaray shalay in maanta lagu soo saari karo oo maanta lagu midayn karo ayaa ah runtii shay cad bay noqonaysaayo iska waadix ah marka labadaas nooc saddexdaas nooc uu kala baxay manhajku waana isku xiran yihiin weeye oo ittibaacna la amray oo nabiga sallallahu alayhi wasallam in la raaco ilaahay subhanahu wa ta'ala uu amray ayaa wuxuu keenayaa in manhajkaagu aqeedadiisu ay wadada qaado حق فهمك الدين أي وضداس قاضي حق دعوتنا أي وضداس قاضي مركا اتباع الرومين النبي صلى الله عليه وسلم للروميسين هي أو للراعة هي أو توجيهات كيس لقاضن هي أو صحابتي أن أمرنا كده ينو يسلف الصالحة أن أمرنا كده ينو الراعة هي أي أنو خصبة هي إن هالكاس لو عشه عقيدة لو عشه فهمك الدين لو عشه كعمل فلك يدعو لفت هذنا هالكاس لو عشه أي الله مارمان منهج كاني ومفصل كاهي مثكي هران صور شيء وحبنا كما قدسنا لكن هو تفصيلي مجمل كيبو تفصيلي حوغا وحي ما ركتي عروسنا ايو ما ركتي يعني كلا صاري كنتي باهي ايا كنتي باهي ذا سو صاحبه iyo majaalka dacwada Soomaaliyeed iyo caalam islaamiga ba waxyaalo badan iyo afkaar fara badan ba isdhex maraysa oo la kala fahmi laayahay marka in xoogaa runtii aad loo cadeeyo oo hoos laga xariiqo waxyaalaha muhiimka ah oo xuruufta la dhibceeyo oo wax kasta farta lagu fiiqo ayaa loo baahday si manhajku uu waadix u ahaado waxyaalaha midalan la oran karo maxaan ku iraahaa maaragtay hadii xataa la siraaho waxba laga bedelay ama waxba cusub la yiraaho hadda waxa weeysaa la socotaan dacwada fidinteedu inay dacwadu fido oo diinta loo noqdo ayaa harta maartay ayuu hadafku yahay laakiin wasiilada la isticmaalayo sida waaqac loo muwaajahaynaya waa si isbedesha oo haba sida munaasabka ah ayaa laga abaarahaya marka taas waxay keenaysaa in masaa'isha qaarkeed maartay siyaabo kale loo tacbiiriyo manhajkani wuxuu ka kooban yahay dhowr iyo 10 baab uu ka kooban yahay baab kastana cinwaan gaar ah ayuu leeyahay فقرضه أما صدره أيو كوبن يهي مركب بابك معنيه سحل فهمه هي مركب دمان لا أخريه فقروين كاس بل فهمه هي محايل أنا وهذا كتابها لو مقرنه نوع مارة النمبر أو كلا أي الله قري مركب قف إنه هالنمبر لبوده مارة دبا كإيمان كرا فهم كأخرده من كرا مركب باب كاست مركب لا أخريه معناها لولوجي ذا هي وكل ما يسترمها هي إن شاء الله تعالى لكن هذه هل صدر الآخرية أما الله صدر الآخرية معناه يوجدي إن هذا قارن أي الله جيابه تنكلوا حاوي جودهان منهج كاني إن لو آخرية أباهن هي لقبل بابك كوباد إلى بابك قدام بيا ومحانك يراها أنك هذا الأمور مهمة ويكمل مسألة الجهاد كأيو وحلمت كأه محانك يرى باب قدام بيا باب اللي حيترنادي ويه marka 16 baab buu ka kooban yahay baabka u dambeeya laga gaarayo midka laga bilaabo kan horeeyahay dhamaantood isku xiran yihiin si musalsal ah ay iskaga farcamahayaan marka qofku inuu si deganaan leh u akhristo u fahmo ayaa loo baahan yahay oo qofku uusan hal faqro ama hal noqdo uusan la boodin ayaa laga maarmaan ah insha Allah taala muqaddimadaas kadib وأن سكب الله بندون هدي الله سبحانه وتعالى ويراه باك كوباد وحكى الله الباب الأول الغاية والهدف والرجال وحلق مارمان قفك إنه هدف يشو قفك إنه وجدي يشو أشياء لقى مارمان كإنسان إنسان عقل بوليه
tasarufaadkiisoo dhan ujeeday leeyihiin qofka muslimka gaar ahaan hadda asagu waa muslim kasii gaar ahaan qofka daaciga ah kasii gaar ahaan jamaacada dacwiga inay ujeedooyin leedahay ama gaayada ay u socotaa ay u caddahay ayaa laga maarmaan ah marka gaayada iyo hadafka waan kala qaadaynaa gaayada waxa weeye waa waxa u dambeeya oo waxaan oo dhan loo samaynayo waxaan maxaa loola jeedaa waxaan maxaa lagu raadinayaa waxaan maxaa lagu doonayaa walaalayaal dacwadan iyo dadaalkan xoolo lagu dooni mahayo in adduun la qabsado lagu dooni mahayo in dad maxaanku lagu maamulo lagu dooni mahayo waxa weeyaan irdaa allah tacaala ilaahi subxaana wa tacaala oo la raali gelinhayo oo xaqa uu nagu leeyahay la gudanhayo diintan xaqeeda la gudanayo ayaa loola jeedaa marka waa gaayatul gaayaat sida laga soo wariyay culimadii hore ducaada ahaa sida xasan ibn raximahullahu tacaala uu lahaa maaragtay allahu gaayatuna marka ujeedadeena waxa weeyaan aan u fog oo u sareysa oo wax kasta soo hosgalahayaan waa ilaahi subxaana wa tacaala oo la raali geliyo asagoo aan xaqiisa la guto weeyaan asagoo jannadiisa la helo asagoo naga raali noqdo weeye oo thawaabtiisa la helo weeye haddii marka midaas maaragtay ay ujeedadeena waxa kala dhammaan waa soo hosgalahayaan marka ilaahi subxaana wa tacaala waxa lagu raali gelinaya waxa weeye in asaga cibuudiyada addoonnimada loo keli yeelo oo keligiis la caabudo oo maaragtay yani keligiis addoon loo noqdo waxaa lagu raali gelinayaa nabigiisa sala allahu calayhi wasalam oo la raaco oo xaq uu mudan yahay maaragtay la siiyo taasoo ah kelimatu tawxiid kelimada tawxiidka oo diinta lagu soo galaahi waxay tilmaamaysaa ilaahi subxana wa taala keligiis oo la caabudo oo cubuudiyada iyo maaragtay yani cibaadada iyo maaragtay uluuhiyada lagu gaar yeelo wadada loo marayo uluuhiyadaas iyo cubuudiyada loo marahayo oo xaqeeda la gudanhayo iyo sida maaragtay loo abaarahayaana si iska furan ma ahane waa si xadidan oo ku dayasho leh waa nabigeena sallallahu alayhi wasallam looga dayanayo way asaga rasuulkii ilaahay ah waxaan kale ilaahay subxaana wa tacaala ku raali gelinaynaa ama hadafkeena uu yahay in ummadda loogu yeero dacwatul umma in ummadda loogu yeero ilaa iqaamati diin illaahi subxaana wa tacaala ummadda in loogu yeero inay ilaahay caabudaan oo ilaahay subxaana wa tacaala ay raali geliyaan oo xaqa ilaahay ay gutaan oo addoommo ilaahay ay noqdaan subxaana wa tacaala oo diinta ilaahay shariicada ilaahay ay isku xukumaan ayaan ugu yeeraynaa marka middan si gaar ah ayaa hadda loo tilmaamayaa oo guud ahaan dee cubuudiyada ilaahay bay soo gelaysaa ilaahay loo addoon noqdo ayay soo gelaysaa laakiin ummadda muslimka maadaama ay qafla ka gashay oo xoogaa lagala dagaalamay inay maarata ummad jirta noqdaan oo lagala dagaalamay inay diintooda ku dhaqmaan ayaa xoogaa ayada si gaar ah loo tilmaamayaa laakiin guud ahaan waxaa weeye hadafkeena annagu in dadka muslimiinta ah ama guud ahaan bani aadamkaba in allaha abuurtay loo addoomiyo tacbiidu nnaas lirabbi nnaas dadka in addoommo looga dhigo rabbiga abuurtay dadka in loogu yeero in ilaahi subxaana wa tacaala ay caabudaan oo cibaadado u khaalis yeelaan oo addoommo ilaahay ay noqdaan loogu yeero weeyaan marka midkaas waa hadaf caam ah waxaana soo hosgelay wax kasta oo maaragtay ilaahayna amray waa soo hosgelayaan in dowlad islaami ah la noqdo oo shariicada lagu dhaqmo waa soo hosgelaysaa in diinta la oogo in macruufka la isfaro in munkarka la iska reebo marka dhammaan waxaasoo dhan maaragtay waa ahdaaf juz'i ah weeyaan laakiin hadafka caamka waxaa weeyaan tacbiid nnaas lirabbi nnaas weeye runtii waana kelimadda lala soo diray alambiya lala soo diray weeye oo nabi kastoo la soo diraa waa isagii oranhayay ana icbudullah maa lakum min ilaahin hayruh nabi kasta wuxuu lahaa ilaahay keligiisa caabuda marka ilaahay subxana wa tacaala oo la caabuda runtii waa kelimad aad maaragtay waa lafdi yar laakiin macno ballaaran weeye waxaa soo hosgelahaya imaadatu ladaa can ariiq wadada oo qashinka iyo qurunka laga xaaqo laga fiiqo waa soo gelaysaa tawxiidka u sarreeya waa soo gelayaa dowladdii baa soo gelaysa siyaasaddii baa soo gelaysa qof kasta meeshiisa inuu ilaahay ku caabudo oo xaqa lagu leeyahay uu guto ayaa runtii maaragtay soo gelaysa dadka qaarkood ayaa waxaa laga yaabaa inay yidhaahaan jamaacadka qaar ayaa waxay maaragtay ay qortaan iqaamatu lkhilaafa islaamiya oo kale bay qortaan ama iqaamatu dowla islaamiya oo kale bay qortaan tii maxaa loo qori waayo runtii ma kala foga iqaamatu diin illahi subxaana wa tacaala iyo taxkiimu sharcihi maaragtay waa shay runtii isku xiran weeye wax kala fog maaha waana juz'i weeyaan
khilaafo iyo dowlad shay juz'i ah weeye oo tacbiidi naas lirabbi naas ay soo hoosgalaysaa marka lafdiga sharciga ah mustalahaadka sharciga oo manquulka ah oo quraanku waxa ku soo arooray ama ku soo arooray maartay ahadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam in la isticmaalo ayaa maartay yani ka tuhmayar ama ka dhib yar in alfaad kale maartay la isticmaalo tan kale waxa weeye si aan dadka qaar kood u malaynin hadii dawladda maartay ay hagaagi weydo ama sharciga la oogi waayo hada waa la fashilmay saan lagu malaynin ayaan waxa anagu u dooranay hadaf aan dhamaanaynin oo aan dhacaynin oo ah in dadka loogu yeero inay wanaagsanaadaan oo Ilaahay caabudaan subhanahu wa ta'ala oo shariicada Ilaahay ay isku xukumaan in dadka loogu yeero in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay caabudaan oo tacbiiduna li rabbi naas marka qofka Ilaahay caabudahayay ama baadiyaha joogo miyaha joogo magaalaha joogo meheradiisa ha joogo maamul ha hayo wadada ha marahay nin kasta maartay tabartiisa iyo awoodiisa iyo nicmada la siiyay in Ilaahay ku caabudo ayaa ku waajiba marka anaga ka jamaaca ahaan inaan xaqiijinaa la rabaa in qof kasta xaq Ilaahay uu guto asoo ku gudanaya mustawaha ku waajibka ah oo tabartiisa ay maartay ay gaarayso awoodiisu ay soo taaban karto taas runtii keeni karta in aan qofku uu shaqo aan dhamaad lahayn uu galo oo maartay qofkii aan tukanayno tukadaahi waa hadaf xaqiiqoobay qofkii oo xalaasha isticmaala waa hadaf xaqiiqoobay qofkii iska ilaaliya xaaraanta qofkii ka soo guura macsida u soo guura taacada waa hadaf la gaaray weey marka ujeedada kaliya in la yiraaho maaragtay maxaan ku khilaafo kaliya aan ogeynaa oo halka lagu soo koobo hadafka xooga inuu yahay juz gaar ah oo si gaar ah la isku mashquulinayo ayaa moodaayay waxa ka ballaaran oo aan dhamaanaynin oo aan laga daalaynin tacbiidun naas li rabbi naas marka erayga asaga ah ama dacwatul umma ila cibaadati Allah subhanahu wa ta'ala loogu yeero kadibna qof kasta waxay ku soo aada si gaar farta lagu fiiqo ayaa runtii ka caamsan marka taas ayaan ula jeednaa xagga qaayada iyo xagga hadafka marka qaayada ayadu waxa weeyaan waa ujeedo fog oo maaragtay ku xiran aakhirada ku xiran weey oo macnaheedu yahay adduunka ama wixii hal la waayo ama hal la helo ama ku guuleyso ama ku guuleysanin laakiin maadaama aad niyadaadu ay fiicneed wixii tabartaada ahna aad samaysay ajarkii iyo qaayadii waa leedahay ama hadafku waxa weeye hadafku waa shay la doonayo in adduunka lagu xaqiijiyo weey waa la heli karaa waa la waayi karaa marka labada shay in la kala saaro ayaa loo baahan yahay baabka labaad waxa weeyaan aqeedadeena iyo manhajkeena si kooban ayaa meeshaan runtii ugu ishaaraynaa aqiidatuna wa manhajuna aqiidatu wa manhaji salaf salih aqiidadeena iyo manhajkeena wa manhajkii iyo aqiidadii salaf salih salaf salih waxa weeyaan waa dadka lagu magacaabo asxaab al-qurun al-mufaddala saddexda qarni oo fadliga badnaa oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu amaanay uu yiri khayrun naas qarni thumma alladhina yalunhum ثم الذين يلونهم أو صحابتي هي تابعينتي هي تابعينتي أو دينتان فهم كذا هي علم كذا هي عمل كذا هي دحل كذا رنتي هذا لو قدم بيو تذكاس يا ماركتي هي عقيدة ذينا هي منهج كأنه كحرين هي مركز السلف الصالح ولا يراها أهل السنة والجماعة ولا يراها ومعناه هي كوي سنة النبي صلى الله عليه وسلم راعي أو كدجي والجماعة وحويان كوي جماعة هاي اسكو حرنا أو أنك لتجين ومنهج كأصجع عاد وده هيستويان مركز الصحابة ذا كوكأه نبي صلى الله عليه وسلم يسيبه هيين وأنا كلن صنايين مركز وحويان إن حق لوجونا كلن صنا هذا حق الصجع أو أن لوك لتجين وشيء مقصود ويان مركز التمسك بالحق والاجتماع عليه سيد الله سبحانه وتعالى أوليه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مركا منهجكنا وأنه عسويا في العلم حق علمك إنه وعلمي سلف الصالح لقسو قوريي أهل السنة لقسو قاري ويان علم عصم مكيني إنه علمك أصلا علم منقولة ويان قرآنكم محفوظة سنة أيضا ما عرفت سيدو كلا محفوظة أقواشي علماء بحمد الله تعالى وبدن كيد محفوظة مركا علميان دينتان ودين محفوظه
xujadeeda iyo asaasiyaadkeeda iyo nusuusteeda kul maxfuud weeye marka xagga cilmiga baan u noqonaynaa xagga camalkana camalkii salaf saalixa baan u noqonaynaa wixii ay sameeyeen oo laga soo gaaray oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ay ka soo guuriyeen ayaa runtii aan sameynaynaa ayaan ku dayanaynaa iyo wal istidlaali xagga diinta fahamkeeda ayaga lagu dayanayaayo maxaa daliil ah maxaan daliil ahayn adilada lafteeda sida loo kala hormarinayaa haddii loo baahdo sida loo kala rajaxayaa haddii loo baahdo marka diinta cilmigeeda iyo ku dhaqankeeda camalkeeda iyo fahamkeedaba iyo dadka loogu yeeraaba halkaas ayaa lagu noqonayaa bixamdillaahi tacaala waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala looga mahadnaqahayaa manhajkaas iyo caqiidadaasi wax qoran weeye wax maaragtay maxfuuda weeye qur-aankeena kariimka waa mutawaatir waa maxfuud sunnada ayada runtii waa laga shaqeeyo ayaduna sidoo kale maaragtay maxfuud weeye aqwaashii culimmaduna bixamdillaahi tacaala waa maxfuuda waa manquul weeye marka intaas ayaaba naga badan haddii ayada la fahmo oo lagu camal falo dadka loogu yeero ayada ayaa naga badan marka labadaas baab ayaan insha Allah tacaala aan ku koobanaynaa maaragtay darsigeena koobaad ama xalqadeena koobaad insha Allah tacaala xalqada labaad waxaan ka bilaabi doonaa biidhnillaahi tacaala baabka saddexaad وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته